kulanti waxaan daawadayaal waa muuse xushow qaybteennan waxaanu ku eegaynaa daawadayaal wararka la xiriira kulan ciyaareedyada xiisaha leh ee Premier League ka tirsan oo qayb ahaan aanu isku soo duubi doono marka laga reebo kulan ciyaareedka xiisaha leh ee dhex mari doona kooxaha Manchester United iyo Arsenal oo isagu falanqeyn gaar aan ka samayn doono kulan ciyaareedyada xiisaha leh ee caawa dhacaya waxaa ka mid ah Manchester City oo soo dhaweyneysa kooxda Nottingham Forest oo ciyaar adag ay la qaadanayaan haddii aanu ku bilowno Manchester City tababaraheeda Pep Guardiola waxa uu sheegay talaadadii in Kevin De Bruyne uu diyaar u yahay badqabkiisuna uu dhammaystiran yahay kulan ciyaareedkan ciyaaryahanka John Stones ayaan ka qayb geli doonin kulan ciyaareedkan oo aanay suuragalayn inuu wajaho kooxda Nottingham Forest waxaase uu soo laaban doonaa toddobaadka dambe halka Mateo Kovacic uu baaqi kusii ahaan doono inuu kooxda ka maqnaado Nottingham Forest ayaa waxa ay haysataa saf ciyaareedkii ay uga hortagtay kooxda Ipswich ee guusha kusoo gaartay sabtigii Danilo iyo Ibrahim Sangare ayaa ah ciyaartooy sii maqnaan doona muddo dheer haddii aanu eegno iswajahidda labadan kooxood iyo kulamadoodii ugu dambeeyey Manchester City lagama badin 8 kulan ee ugu dambeeyey ee ciyaaraha horyaalka ee kooxda Nottingham ay ka hortagto waxaana ugu dambeysay khasaare 3 gool iyo 2 gurigooda lagu garaacay 1997kii Forest ayaa khasaartay 4 kulan ee ugu dambeysay ay la ciyaarto kooxda City celcelisaana waxaa looga badiyey 12 gool iyo eber waa 4 kulan marka la isu geeyo oo gool maanay dhalin waxa ay guul la'aan yihiin 7 kulan oo ciyaaraha ay booqdeen kooxda City gurigeeda ka mid ah tan iyo markii ay 3 gool iyo eber kusoo badiyeen ciyaar dhacday 1989kii kulan ciyaareed kale waxa uu dhex marayaa isna kooxaha Liverpool iyo Newcastle ayaa soo dhaweyn doonta kooxda Liverpool waxaana isku dayi doontaa inay go'aamiso horyaalka hoggaankiisa iyo inay wax ka bedeli karto waxaase suuragal laga dhigayaa inuu soo laaban doono ciyaaryahanka Alexander Isak inkastoo aanu tababaruhu shaacin in xidigani uu taam yahay oo uu diyaar u yahay kulanka waxa uu ku qasbanaaday in dhaawac looga saaro ciyaartii Crystal Palace ee sabtigii dhacday tababaraha lagu magacaabo Eddie Howe waxa uu rajo weyn ka qabaa in ciyaaryahanka Dan Burn uu diyaar u noqon karo kulan ciyaareedkan ka gadaal markii dhibaato dhaawac uu xidigani horey u wajahay Jamal Lascelles Emil Kraft iyo xidiga kale Sven Botman dhammaantood waa ay maqnaan doonaan Liverpool ciyaaryahankeeda garabka ka ciyaara Federico Chiesa ayaa tababartay diyaarna u ah in uu ciyaaro ka gadaal dhaawac muruq ah oo muddo uu garoomada uga maqnaa waxaase tababare Arne Slot uu rajaynayaa in sidoo kale Alisson uu kusoo laaban karo kooxdiisa dhammaadka bishan Conor Bradley, Ibrahima Konate, Diogo Jota iyo Costas Tsimikas ayaa dhammaantood ka maqnaan doona kooxda Liverpool. Xaqiiqooyinka kulanka haddii aanu eegnana Newcastle waxa ay khasaartay 6 kulan ee ugu dambeeyey guul la'aan yihiin 15 kulan oo ciyaaraha heerka sare ah ay ka hortagtay kooxda Liverpool tan iyo 2-0 mar ay uga badisay ciyaar ka dhacday Tyneside deegaanka la yiraahdo Newcastle ay ka dhisan tahay 6 December 2015 intaas wixii ka dambeeyay 4 mar garab dhacay gashay 11 marna waa laga badiyay Newcastle kooxda reer Merseyside ayaa badisay 5 kulan ee ugu dambeysay ciyaaraha horyaalka kooxda Merseyside ayaa badisay 5 ka mid ah 6 kulan ee ugu dambeysay ciyaaraha horyaalka ay booqato garoonka St James Park waxaana ku jira 3 la soo dhaafay iyada oo guulaheeda ay Magpies ka soo gaarto ay ka mid ahaayeen kuwo soo laabasho u badan Liverpool waxa ay badisay 11 ciyaaraha Premier League ah oo ay kooxda Newcastle filanaysay in ay adkaan karto balse soo laabasho looga badiyay kulan kale waxa isna uu dhex maraya kooxaha Southampton iyo Chelsea Southampton saddexdeeda ciyaartooy ee kala ah Taylor Howard Bayles Falian Downes iyo Tyler Devlin ayaa dhammaantood min kulan ganaaxa uga maqnaan doona kulanka Arbacada dhacaya ka gadaal markii min 5 jaalle ciyaartooydani ay gudoomeen xidiga amaahda lagu siiyey kooxda Southampton ee Leslie Gojogu uma suuragal ah inuu ciyaaro kulan ciyaareedkan maadaama kooxdii iska lahayd ay kooxdiisu wajahayso Jan Pendrag ayaa ku soo laabtay safka kooxda ka gadaal markii 2 kulan oo la soo dhaafay uu kooxda ka maqnaa Paul Anowochu ayaa sidoo kale diyaar u noqon kara kulankan Chelsea difaaceeda Wesley Fofana waxa uu seegi doonaa kulan ciyaareedkan waxaase dhaawac dhinaca muruq ah oo qabo xidigani uu dib uga soo kaban karaa waqtiga dhow Reece James waxa isna uu ka mid yahay ciyaartooyda sii maqnaan doona xaqiiqooyinka kulankan
haddii aanu eegno kooxda Southampton ayaa waxa ay raadinaysaa guusheedii saddexaad oo xiriir ah oo horyaalka ah oo ay ka gaarto kooxda Chelsea markii ugu horeysay muddo 39 sannadood ah. Chelsea ayaa dhalinaysay gool 18 kulan ee ugu dambeeyay ee horyaalka Premier League ee gurigeeda meel ka baxsan kusoo ciyaarto tan iyo markii 1-0 guuldarro ah ay kala soo kulantay kooxda Southampton ciyaar dhacday December 1997. daawadayaal kuwaas waxay ahaayeen falanqeynada isku duuban ee kulan ciyaareedyada xiisaha leh ee Premier League ee iyagu maanta dhacaya marka laga reebo kulan weynaha dhex mari doona kooxaha Arsenal iyo Manchester United oo isaguna aan falanqeyn gaara idinkaga hayno oo aan idin soo wadno. daawadayaal intiinii horey noola socotay waad ku mahadsantihiin, intiina nagu cusubnaa kanaalka noo subscribe gareeya oo na gaarsiiya heer sare waanad ku mahadsantihiin la socodkeen.